shaqo la'aanta ka jirta guud ahaan dalkan Yemen gaar ahaan magaalada Sanca ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay soo siyaadaysay tani ayaa waxa ay sababtay in Soomaali badani oo awalba halkani ku noolaa nolol aad u adag ayaa si weyn u saameysay oo ay garan laayihiin meel ay afka saaraan shaqo la'aantan baahsan ayaa waxa sabab u ah qulqulutooyinka siyaasadeed dhaqaale iyo amni ee ka jira guud ahaan dalkan Yemen gaar ahaan magaalada Sanca وشقيت رمضان أيوة دبيس والله وشقيت جيش من 6 سنة جوجنا وشقيت يعني علشان دقال كان محيط شقيت عسكر ضافني برياس كجوجنا ماي هذا مش شقيت وشقيت جري شقد وحي استاجي وضع كتاغن dalka Yemen aragta Soomaalidan ayaa markoodii hore ka shaqaysan jirtay shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku dabaran jireen kadib markii ay shaqo la'aantani ku dhacdayna ay jilbaha dhulka la heleen oo guryihii ay deganayeen xitaa iska bixin waayeen kiradiisa korontadii iyo biyihii oo bil walba la soo dalici jirayna warkooda badda qaar ka mid ah dadkani ayaa danta waxa ay ku qasabtay inay buushash ka hor dhistaan xafiiska ay leedahay hay'adda u qaabilsan qaxootiga adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNHCR taasoo ay halkaasi degan yihiin in ka badan 7 bilood oo ilaa iyo haatan xaalkooda wax laga qaban la'yahay haddaba dadkan Soomaalida ayaa noloshooda aad u soo adkaatay 9 bilood ee u dambeysay ee wadankan Yemen ka bilowday dhaqdhaqaaqyada isbedel doonka Maxamed Cali Juxa telefishinka qaranka Soomaaliya Sanca Yemen